Fartuunlaka official waa jananka dunidan loogu isticmaal batay cunto dhadhamayso qaraar laga sifeeyo ay lahayn saluugba Fartuunlaka official loogu soo dalxiisaa Fartuunlaka official loogu soo dalxiisaa Fartuunlaka official waa janan tilaabsaday aan taag darnayn oo dhammaan dunida oo idil laga daawanayo cajab geliyay qeyrkiis Fartuunlaka official duco baan u dirayaa Allah ayow raxmaanow Fartuunlaka official kadib kii jiro la daawado barakaatuhu kulanti wanaagsan daawadayaasha qaaliga ah halka naga socotaan waa Fartuunlaka official oo alaaba nooga baratay inaan ka soo gudbino barnaamijyo xiiso badan maalin wanaagsan waqti wanaagsan xilli kasta ku tahay wanaagsan daawadayaasha qaaliga ah ku soo dhawaada program cusub barnaamijka maanta waxaa halkan kaga soo tabin doona aniga sidoo kale sida nooga barateen Cabdullaahi ku soo dhawow maanta barnaamijka daawadayaasha u wadno asxaabta sharafta leh Fartuunlaka official mar kale waa salaamintiin ku soo dhawaada mar kale programyadii aad nooga barateen waxa idin wadnaa program cusub magaalada Muqdisho waxaa nooga sugan abwaanada waa abwaanka ugu da'da yar magaalada Muqdisho isxaaq Abshir Hussein oo abwaanada ugu da'da yar magaalada Muqdisho ku dhaqan kamid ah ayaa maanta marti nooga ah akiila barnaamijyo kale xiiso badan oo soo socdo waxaan wareysiyo kala duwan la yeelan doonaa dhalinyarada da'da yar oo hal abuurka leh iyo sidoo kale majaajilistayaal oo aad iyo aad looga yaqaan magaalada Muqdisho waa program cusub aan ugu talagalnay sanadka 2020 aad iyo aad waxaa meesha waxay ku soo bandhigi doonaan halkan Fartuunlaka official jans u siin doonaa abwaan kasta iyo talent uu leeyahay dabcan abwaanka dhinaca fadhiiso Nooshi Cabdullaahina wuxuu kamid yahay abwaanada ugu da'da yar isla markaasna gabayar badan curiyeen caawada iyo waxaan diyaar u yahay daawadayaasha Fartuunlaka official sidoo inuu u soo gudbiyo gabayadiisa qurux badan sidoo kale waxaan daawadayaasha la wadaaga Cabdullaahi abwaankan wuxuu sameeyay gabay qurux badan wuxuu sameeyay janalka Fartuunlaka official si wanaagsan waxa dhigi karnaa waa janalka ugu horeeyay ee magaalada Muqdisho ama Soomaaliya oo loo sameeyo gabay amaan ah aad iyo aad abwaanka waa ugu sii mahadcelinaa anoo ku hadlaya dhammaan magaca maamulka iyo teamka Fartuunlaka official abwaana waa maasan tahay ku soo dhawow Fartuunlaka official السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلامي أنت كحرن جنك Fartuunlaka official أنت سكدي مجا هو إسحاق أبشر وعن هالكان وصل طلق لي أو جديد هالكان عاوة وصل في الاستواء تاي إن جوية بدن هايو هالكان كسر بنيو سيدا ترتيب جوية عن هايو أدي وجدينهين جوية هذا عن تيرين تونا abwaana ka dhaxgalay intaan gabayadii iyo warbixinadii kala duwan aan u gelin bal wax yar oo taariikhdaada ku saabsan bal overview inaan naga siisid si aan adigana anaga ku barano dadweynaha ku bartaan bal soo dhaw hortaniyo aniga waxaa iska ahay nin arday ah adduunyadan waxa waaye intii labada kun ka dambeysay waa ku noolaa si wanaagsan taariikh badan aan hayl ugu jirto si wanaagsan marka laakiinse انت ان شاء الله الدنيا كنا لا وحاولي على سوق كمية كمان ديوان كيش يكين طبعا ان شاء الله عادي ما قصتي أبوان ضدنا حليهن أبوان كدالية محاك سؤال دي محاك كل فين وقبيان نقبل حاول جواب لي حنقول جواب لها هرتا إنه على الألفون مسكحان إلهي كسي عاد استماشوها الوبها ما هنقف وحسوا ألفين أما وصوقر إلى استماشوها وكل كاتك اليوم وأنا مسكحة دي أولى وقتها. مركا وحنا أقول لي جوياdan inaan akhriyo markaan arkay dhibaatooyinka iyo waxyaabaha badan oo ka jira caqabadaha badan ee waddanka ka jiro inaan wax alifo marka aad iyo aad waa tahay waxa weeyaan hadal ku daan daawadayaasha gabay ugu horeeya aan ku daafurno muxuu noqon doonaa abwaan gabayga wuxuu ka hadli doonaa dardaaranka waxbarashada كله واحد أقول له كله يتقن كرميس. marka waxa hordhac wuxuu u yahay absan dardaaran dadka wax ay waxbarasho soo go'aan way noo mari kartaa abaan taariikhdu waa shay dunida laga tixraacay tagto iyo midii taagan iyo tan ugu soo food leh saddexdaba dad baa tibiyay oo laga tibaxdaayay aqoonyahanku waa tiirka aan tahan ku gaarnaayay
tacliin haddii aysan jirin tacaddi soo maaha. tiknolojiyadda aad arkayso lagu tabaaxayo telefoonka iyo taararka iyo weliba tv-ga waxaa aalad lagu tababarto nolosha taabayo aqoon-yahan tijaabiyey ayaa tiigsado helay tacliin haddii aysan jirin tacaddi soo maaha. tafsiirkiiyo qur-aanka iyo xadiis toobad lagu raadsho taajkiiyo riyaadkiiyo kitaab diinta nagu toosin tiirkii islaamka iyo sharcigana laku taageeray aqoon-yahan soo tabiyey baa taabay oo wadaye tacliin haddii aysan jirin tacaddi soo maaha. tifaftiraha wariyaha ah oo meel walbaba taagan tv-ga raadiyaha wararka teeleeya tixda gabayga heesaha tashiga iyo istaageerka aqoon-yahan tiirkii muday taagsanayaane tacliin haddii aysan jirin tacaddi soo maaha. tartankii adduunkan ku jira tabaco soo saarka hubka toogashada iyo biraha togaya leeshaanka beeraha turaabta ka badan dalaga noo tuuran aqoon-yaha tijaabadii ayay watis qaadeene tacliin haddii aysan jirin tacaddi soo maaha. tooskiyo xanuunada jiroo taranka aafeeya tabartaada oo leeditiyo taha kugu raagay dakhtarka hadda weeyaa jiroo taableed kuu qirine aqoon-yahanku tacab buu ka maray wuuna tiigsaday tacliin haddii aysan jirin tacaddi soo maaha. afartaas tabtii jaamiciga toos ma ugu yeeray ma turjumay sidii wiil khartuun tagay iskuulkeeda ma tallaalay sidii geed ku yaal tog iyo meel ciida afar kalena talo waayo aan idinku taageeray tacliin haddii aysan jirin tacaddi soo maaha. nimaan taaban beerkiisa oo gaajo taaftaafin tabartiisa ruux aysan lumin toosna ku abaadin toddobaadyo wiil aan qadinoo 10 aqoon waayin ma tanaado oo waalidkiis toog ma sheelsadee iska tiirsha ay bahay cilmigeeda ku taageeray tacliin haddii aysan jirin tacaddi soo maaha. intaanu ayuu leeyahay gabaygii koowaad ee waxbarashada kaale tacliin haddaysan jirin tacaddi soo maaha. aad iyo aad abwaane waa maasan tahay dabcan waan dareemi karnaa tacliinta qiimaheeda iyo inta sida ugu soo sheekaysay oo hadday teknolojiyadan iyo takhaatiirtan iyo adduunyadan tacliin la-aanteed inaysan soconayn bulshada soomaaliyeed oo waxbaranaysana inay taas dhiirigelin iyo u noqonayso ayaan rajeynayaa. abwaane adigana aad iyo aad u maasan tahay sidii aad u dhiirigelisid dhalinyarada waxbaranayso. maxaa noo xiga abwaane intaan su-aashaada ka jawaabin gabaygan gormaa orto aad curiso dabcan ujeeda mobilkana ka diyaarinaysa xamalan gabay dhawaan aa curiso ahay mar dhow ayaan curiyey haddaan ayaan dabka kusoo qaaday kolley yaana loo gubin. gabay hadda dadka laga soo qaaday marka waxa ayaa loo guban dadkaas ka ilaashana kasi kala ayaan leenahay gabayaal kalena xigi doona laakiin dib waxaan ugu laabananaa taariikhdiisi iyo inaan kasii yaalano su-aalana sii weydiino. abwaane dabcan abwaan leh waxaa tahay taalanti goormaas ogaatay inaad gabay ama curintusaalahaan tahay taalantigana leedahay. okay horta aniga markaa iskuulka bilaabay ama aan dhigan jiray ayaa waxaa soo jeedin jiray taaburo badan marar badanna waxaa alifi jiray waxyaaba ayaa iska alifi jiray marka kolley wax walba ahaato waxaa la iska alifaa mar un baa ku guuleysan doontaa. hadda marka waxaa rajeynaya inaan meesheeda kasii wado aanan ka harin maadaama aan wax bilaabay mar haddaa wax biloodin waxaa loo baahan yahay inaad dhamaystirto aadan ka harin. si wanaagsan gabayga hadda wuxuu ka hadlaya dhanka tacliinta gabayadaada ma dhanka waxbarashada ay la xiriiraan mise dhammaan way badan arrimaha bulshada gabayadeedu way badan yihiin waa tahay sax marka dhan waxbarashada iyo dalka iyo macnaha haddii aad duwaabin iyo waxyaaba badan isku jira maasha allah. abwaanka waxaa dhihi karnaa gabayadiisu waa bad macnaha ma la soo koobi karo. waa u rajeynaa isagana mustaqbal wanaagsan iyo sidoo kale in uu gabayaal badan sii hore u socon doono gabal badanna uu soo saari doono. akiilow waxyaalaha aada ii xiisageliya waxaa kamid ah diiwaanka abwaanka maanta mar aan baarbaarayay waxyaalaha i cajibiye waxaa kamid ahaa gabay uu ka tiriyay arrimaha diaasbarada minis waa dadka qurba joogta ah oo maxaa la yirahdaa aad iyo aad marka dadkaas qurba joogta ah iyo maxaa la yirahdaa dadka qaar dalka kusoo laabteen oo dadna weli waa jiraan marka arrimahaas abwaane bal ka warma gabaygaas aa uga hadlaysa dhanka diaasbarada dabcan ani aad u isoo jiitay daawadayaashana waxaa jecel lahay in sidoo kaleeta aad usoo jiidan doono
markay bal gabaygaas bal taariikhdiisii iyo gabaygii iyo bal haye soo dhowo. Okay. Horta gabaygaas waxaan alifay ama aba ugu soo dhacaba marka aan arkay dhibaatada ka jirto dadka aadayo dalka shisheeyaha ee diigsanayo ee wadankooda ka tegay. waxaan dadkaas marka koowaad kula talin lahaa inay dalkooda dib ugu soo laabtaan ayna dib u dhistaan. ma ahan inaad dad nin dalkiisa hormarsaday aad aadi oo kugu shaqaysto laamiyada aad u xaaqid ma aha. ka faa'iidaysta talada abwaanka daawadayaasha. marka waa inaad dalkaada joogtaa dhistaa. kolley waxaan umaleynaya dalkaada hooyo waxaa kaa fiican ma jira umaleynaa. marka waxaana maqli jiray bidaartu waxay kugu gashaa sibiq iyo wadiq ayay kugu gashaa. dhibaatada ugu weyn ee dalka shisheeyaha dadka aada haysta waxaa weeyaan ayagoo bidaarle ay kusoo laabtaan. aad iyo aad tahay abwaana gabaygaas ma inoo mari kartaa? haye soo dhowo. kolley gabaygaan marka koowaad wuxuu ka hadlayaa inta dambe wuxuu uga hadlayaa dadka diaasbarada ay si fiican u cabaarinaya. qaybtiisa koowaadna mar ayuu wax soo gelin doonaa hal tuduc oo gaalka ku saabsan. marka waa idin meeri doonaa kolley dhegeysi wacan. horta anigu yaa lahay adiguna iskumaa tahay ismama naqaanee afka ha isku keen gelin si haddaan iskaan baro anaa kaa sarreeye mahaddaa allaa leh soomaali baan ahay. adna gaal hanti aan ku faano ee bahay isiiyee waa diin islaamkee adna gaal qurmoon oo iisoo uraayo ahlunaar baa tahay. england daaraheedii caqalada maraykan ummaduga asaagii kanaan anigu leeyahay marna kanaan anigu leeyahay oori aan ku dhaqayaa ubad aan ku dhalayaa arrimaha rabbaalee lagu aasi doonaa. afafkan qalaadiyo ingiliishka ma aqaan inta joogta dabadaha ayagana waxaan idhi ayuu okay iyo waxaan aabbahaa lahay ammaan kuguma noqotee ha ka tegin afkaadiiyo abtirsiimadaadiiyo ku aroor ciddaa tahay. haska dhigin reer yurub caqaladaad u xaartaa qiimaha agtoodiiyo ardaagooda ku yaal orom iyo waxaa tahay dugaag aan la doonin sanka laga adkaystee ayayii awoogood odayaal itaal gabay ayaad baad u mayrtaa. inta yarood ku siiyaan waddankii la aadaa aaladaha qarxaayiyo sheegataa aqoon-yahan aan loo dhowaan karin. isma kiikidaayow arigii aad taqaanay sida adoonan garanay geel aad ku sheegtaa. mulacaad arkaysaa tiraahdaa waa abooro eryataa qoraanjada arladoo dhan buurtaa. ismacnaynta beentaa hooy waa la eedaa ee garo waxaa tahay soomaali asal oo afrikaana baa tahay. intaas ayuuna iga yahay gabaygaygii labaad ee aan ugu talagalay dadka diaasbarada. aad iyo aad waa arrin cajiib ah. dabcan sida hore u sheegaba gabaygan aad iyo aad waa maanta markii aan soo akrinayay diiwaanka gabayada abwaanka aad buu ii xiisa geliyey. koos waa waxaa la yihahdaa sababta jirta waxay tahay dadka qurba joogta ah markay yimaadaan wacyigii dalkii ka jiray iyo wixii waa isbedelaya. wuxuu la qabsaday dalalkii iyo meel uu soo joogo. marka in dadkii dalkii iyo dhaqankii aysan lumin oo arrin wanaagsan maxaa la yihahdaa wayaan abwaanka wuxuu noo tiri. marka abwaane intaana ka bixin gabaygaas bal ka warba falcelinta bulshada ka timid gabaygaas marka aad tirisay bal ka warba. diaspora maxaa kala kulantay iyaga ku socdaaya. kolley markaa wareegtay dad badan oo diaspora ah ee waddanka dib ugu soo laabtay waxay iga sheekeeyeen dhibaatada iyo waddanka ka jirta waddanka shisheeyaha iyo caqabadaha ay kula kulmeen ee badan. marka in si xun loo galo in ma garanaysaay la jirdiro in ma garanaysaay sidii rabo laga yeelo. marka intaas ayaan uga baxay jawaabta. marka waa rajaynaynaa diasporana inay ku qaadan doonaan gabaygaas insha allah. walaakiin abwaan notary isxaaq insha allah. waa tahay daawadayaasha waxaan weli waxaa nagala socotaan channelka Fartoonlaka official. waxaa noo soo socda gabay gabay iskuma jire waa gabay loo tiriyey Fartoonlaki channel ama Fartoonlaka official. akilo intaanan gabaygaas waa aan u gudbin maadaama aad xiisiis u badan yahay oo maxaa la yihahdaa maadaama ammaan gooni ah oo janalka Fartoonlaka official loo soo jeedinayo. abwaan waxaa rabaa su-aal yar inaan raacsado. dabcan abwaanada iyo dadka hal abuurada Soomaaliyeed in badan waxa waaye dad bay uga daydaan
markii la yidhahdo hal abuurka bal ka waran bal hal abuurnimadaada markaad aragtay bulshadii ay ku dhaheen waxbaa curi kartaa oo adigina soo baxday oo diiwaan badan aad qortay maxaad is leedahay ilaa abwaanka aad ku tahmaysaa is leedahay waad gaari kartaa iyo waa hamigaadi iyo mar walba aad ku hamaysa in asagoo kale aan noqotid aad iyo aad ay umahadsantahay horta waan ku faraxsanahay marka koowaad inaani abwaan aan noqdo aad iyo aad Wadankii- ugu taageerayna wadankii haddaadan lahayn ama hanti ama aadan lahayn waxaa la rabaa inaad afkaada wax ugu soo kordhiso ay loo baahan yahay maskaxdaadana aad isticmaasho si wanaagsan marka waxaa kolay fil u lahaa gabayada awowayaashii iyo magaranaysaa dad badan baa gabayada ugu heetay aad iyo aad marka waxaan doonayaa ama aanba jeclaan lahaaba inaan gaaro heerka abwaan hadraawi oo kale haduu ilaahay u ka raali noqo si wanaagsan si wanaagsan marka wax walbana wad ayaa ka sokeeya kahor intaanan u gudbin gabaygii fardoonaka official aan ugu talagalay waxaan doonayaa inaan sheeko xiisalo meeshaan aan soo geliyo soo dhawo aad iyo aad aad iyo aad taasoo ku saabsan heerarka ama leefalyada maalin walba ay dunyada ay joogto haddeer waxaad arkaysaa haddii aad joogto haddii aad taajir ahay beri inay lacagtii kaa dhimaato waad arkaysaa waad noqoto qof faqiir ah si wanaagsan gabaygaasna wuxuu ku saabsan sheekadaasna waxay ku saabsan tahay nin boqor ah ayaa waddan wuxuu ka ahaa boqorka ahaa marka maalin maalmaha ka mid a ayuu dadkii uu boqorku ah wuxuu weydiiyey wuxuu dhahay su-aalo badan baa idin weydiinayay bal hala soo baxo aa laisku yimaado 3 su-aalood ayuu weydiiyey dadkii midda koowaad waxay ahayd dhulka cirka ilaahay hadda muxuu samaynayaa midda labaadna waxay ahayd xidigahan cirka saaran imise xaba ay waayo tiradoodu midda saddexaadna waxay ahayd dhulka kale barkiisii ay sheegi karo ay qofkii su-aalahaas ka jawaabo ee si saxa u keenana wuxuu abaalmarin ku siinayay 50 kilogram oo dahab ah dadkii way baxeen su-aalihii kolley waqti ayuu siiyey 1 bil oo waqti ayaa la siiyey way ku keeni waayeen maalin maalmaha ka mid a ayaa nin reer baadiya oo la xawrto iyo ul wato ayaa wuxuu yimi magaaladii war magaalana waa iska garanaysaaye meeshii uu ku jiraay ninkuu u maqlay wuxuu dhahay ninka boqorkaa ee la sheegaayo anigaa la igeeyo anaa su-aalaha ka jawaabayo dad badan oo xildhibaano ayaa yasa waxay yidhahan adiga dulufkaa la xadooto maxaa ka jawaabi kartaa wuxuu dhahay adiga hal iska dhaafay ninkaa la igeeyo ninkiyaa loo geeyey warba ma gelin wuxuu dhahay nin aabahay hadkoor ii shekeeyu dhahay wuxuu dhow dhahay ninkaas meesha boorka ka ah lacagta maanta uu hayo hadduusa 50 kilogram dahabka uu hayo hadduusa ku siin saaxiibkii ma dhalin waa cilwaay marka ninkan boqorka ah sharaftiisu ilaalsanayay mar raba hadhowt in dib laga caayo la yiraahdo nin wacda garanaysaa aanu xil noo hayo 50 kilogram oo dahabka uu siiyey wuxuuna dhahay orod iyo sharafta ay dheeli wuu baxanid dahabkiisu iska qaatay nin xildhibaan oo meesha ka dhawaaya soo booday wuxuu dhahay niyow saa dahab ku siisay intaas see dahab ku siisu dhaanadoo su-aalihi waa keenayay ninkaanu hadal yar ku yidhi saa dahabka dhamaa u siisa wuxuu dhahay niyow ninkaas haddaad daba geshin ninkaas ay usoo celin haddaad daba geshin adoo qaawanaya usoo laabana dhahay marka ninkii faraskiisii iyo ushiisu iyo wuxuu qaatay iyo seeftiisa ninkii reer baadiyaha uu ka daba tegay meel dhexaasoo sii socdo ula kala wareeyo hortiisa wuxuu dhahay niyow su-aaloon kamaan jawaabin sidee waa dahab kusoo qaadatay marka wuxuu yidhi war aniga niyow su-aalan laga weydiin su-aalaha sheegaysu maxay yihiin niyow wuxuu dhahay boqorka 3daas su-aaloona weydiiyada bal jawaabahooda ma ii sheegi kartaa waa kuu sheegi karaa ushii uu watay buu soo qaatay dhulka dhexdiisuu ku mid marka wuxuu dhahay dhulka kale barkiisa waa ganaa marka macnaha wuxuu dhahay xaggana kasoo mitira xaggana kasoo mitira meeshaan aduu keen jaad dhul yaa mitirin karaa marka ninkan uu faraxsan wuxuu umaleeyaa su-aashii in loo sheego umaleeyaa sax marka haddii aad dib ugu laabto wax yar cafkan haddii aad dib ugu laabto waxay ahayd wuxuu dhahay miyaw aan kuu sheegay su-aalaha marka hore bal waxaa ii sheeg wuxuu dhahay way ii saxnay waa ku laaban doonaa insha allah waa tahay
dabcan sheekada ayada ah ani ujeedka guud wax u fahmay qofka oo maangalka ah iyo maxaa la yirahdaa in hantida ay uga muhiimsan tahay aad iyo aad marka arrintaas abwaanada iyo dadka cuqaasha ah aad iyo aad ayay maxaa la yirahdaa u tixgeliyaan dabcan abwaankana saa ujeedo waxa ka muuqato ifaaladii abwaannimo oo maxaa la yirahdaa maangalnimadii iyo cuqaalnimadii abwaane waa maasan tahay akil maxaa noo xigo abwaanka udiya horta iskuulka dhigata horta abwaan aniga waxaa dhigtaa iskuulka adult commercial secondary school maasha allah waan gartay waana ku faanaa waa tahay cabdullaahi abwaanka gabayadiisa aad u fara badan yihiin halkan laguma soo koobi karo daawadayaashana waxay naga sugayaan gabaygii fartolaka official channelkeena lagu ammaanayay marka kulamo kale ayaan samayn doonaa oo aan ku casumi doonaa abwaanka oo isna diyaar ku noolaya had iyo jeerba in oo gabayadiisa iyo oo nagala qayb qaato insha allah abwaane waxaa lagu soo xirtaa gabayga fartolaka official channel ugu talagashay marka ugu horeysa goorma horta gabaygan aad curisay maxaase kuu dhalay inaad gabayga fartolaka official aad u samaysay gabayga waxaa curiyay 2 habeen ka hor baa curiyay marka arkay janka fartolaka official sax sida u kala socday magaranaysa cuntada macaankeeda meelaha fogfog looga imaanayo dabcan waxaa ka mid tahay dadka ku xiran fartolaka official channelka aad iyo aad marka haddana gabayga ayaan idiin akrin doonaa dhegeysi waxan aad iyo aad fartuunlaka official ammaan baan u dirayaa fartuunlaka official waa jananka dunidan loogu isticmaal batay cunto dhadhamayso qaraar laga sifeeyo ay ahaan saluugba fartuunlaka official loogu soo dalxiisaa fartuunlaka official loogu soo dalxiisaa fartuunlaka official waa janan tilaabsaday aan taag darnayn oo dhammaan dunida oo idil laga daawanayo cajab geliyey khayrkiis fartuunlaki official duco baan u dirayaa allahayow raxmaanow fartuunlaki official kadhig kii jiroo la daawado aad maasha allah amiinta oo aan u raacino hadduu ilaahay idmo abwaane waa maasan tahay 100% waa filanaa gabayo kale oo noocaan oo kale inaan noo soo sameyn doontin insha allah si wanaagsan waa tinka fartuunlaka official iyo laftooda ka dhex muuqan doonaan abwaanka inta aan soo gabagaben daawadayaasha cabdullaahi waxaa rabaa inaan la wadaago halxiraalayaasha dabcan toddobaadkii mar aan soo gudbin doonno si wanaagsan daawadayaasheena fartuunlaka official ku xiran si wanaagsan marka daawadayaal waxaa idinka rabaa halxiraalahan inaad kusoo jawaabtaan insha allah qaybta commentiga waxaan u dhacaysaa sida tan waxaa jiray tiro shimbir ah lambarka ma sheegay waxaa jira tiro shimbir ah isla markaasna geed kor saaran sidoo kale waxaa jira tiro shimbir ah oo geedka hoos jooga tirada shimbiraha ee geed kor saaran shimbir ka mid ah haddii ay degto oo ay ku hoos u tagto waxay noqon doonaan tiro siman kuwa geedka saaran iyo kuwa geedka hoostiisa jooga calashaan tusaale ahaan kale laba shimbir hadday geed kor saaran tahay iyo laba hoos jooga camal ay noqon doonaan tiro siman ay noqon doonaan haddii tirada shimbiraha geedka hoostiisa jooga mid ka mid ay duusho ee u tagto kuwa kor saaranna waxay kuwa kore laba jibaar ku noqon doonaan kuwa hoose si wanaagsan waxaa lagaa doonaa marka inaad sheegtid tirada shimbiraha ah ee geedka kor saaran inta ay yihiin iyo tirada shimbiraha ee geedka hoos jooga inta ay yihiin waan filaya inaad kusoo jawaabi doonteen insha allah aad iyo aad waan filayaa asxaabta ku xiran fartolaka official in si wacan uga soo jawaabi celi doonaan akiila barnaamijka innaga waa soo xiran doonaa waxaa rabaa asxaabta inaan mar kale ku wargeliyo in aan barnaamij program gooniya aan ugu talagalnay inaan ku wareysano abwaanada dhacda yar abwaanadii hore majaajilistayaasha caanka ah barnaamijkaas oo aan ku ogaan doono taariikh nololeedka iyo maxaa la yirahdaa iyo dhammaan maxaa la yirahdaa majaajilistayaasha abwaanada taariikhdooda iyo dhammaan hal abuurkooda marka insha allah barnaamijkaas waa barnaamij cusub oo 2020 aan ugu talagalnay inuu ku socdo fartolaka official waxaan idin soo gudbin doonaa toddobaadkii mar ama barnaamij taxanaan loo ahaan doonaa hadduu ilaahayno sidoo kaleet waxaa rabaa inaan si hordhaca ugu sii gudbiyey in fartolaka official lasii casriye doono oo ku socdo barnaamij casriyeen ah insha allah barnaamijkaas barnaamijyo kaleeto xiiso badan waa la socon doontiin hadduu ilaahayno janalka fartolaka official abwaane waa maasantaha 100% sida barnaamijka noogu soo ajiibteen nooga soo qayb gashay
waxaan ku leenahay maalin wanaagsan habeen wanaagsan adiga asxaabta kaleeto oo ku xiran Fartolaka official insha Allah timanka kaleeto oo ku xiran iyo abwaanada kaleeto sidaan ayaan ugu casuumin doonaa iyo inaan magaalada Muqdisho duulaha meelaha aan oo asaysan inaan abwaanadii iyo warbixinadaas inta kaga soo gudbino waa kaasa barnaamijkanagii oo maanta ah intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waxaan celinayna sidoo kale Lucky oo kaamirada dhanka naga saacidaysay sidoo kale farsamada noo joogo daadirkan telefoonta dambe asxaabta waxaan leenahay video kale oo xiiso leh bye bye